Sidee nin sabool ah oo waddooyinka seexan jiray, saaxiibna aan ku lahayn adduunka, oo haddana u noqday taliyihii ugu naxariista darnaa caalamka oo idil. Kani waa Adolf Hitler, ninkii sababay dhimashadii 70 milyan oo qofood, caasimad dhan ah u beddelay dambas. Waxaan degi doonaa sirta madow ee noloshiisa laga soo bilaabo carruurnimadiisa ilaa saacaddii uu madaxa xabadda isaga dhuftay dhufayska Berlin dhexdiisa. Haddii aad diyaar u tahay inaad ogaato taariikhda dhabta ah ee uu dunida ka qariyay, isku diyaari oo subscribe saar channelka, waayo hadda ayay noo bilaabanaysaa qisadeena. Adolf Hitler wuxuu dhashay 20 Abriil sanadkii 1889 wuxuuna ku dhashay magaalada Baraana Amin ee dalka Austria. Wuxuuna ahaa cunugii afraad ee Adolf Hitler. Yaraantiisuna wuxuu la kulmay aabbo aad u adag oo cadaadis badan, kaasoo rabay inuu wiilkiisu noqdo shaqaale dowladeed. Laakiin Hitler wuxuu doorbiday inuu noqdo farshaxaniste, taasoo keentay khilaaf xooggan oo dhex martay isaga iyo aabihiisa. Aabihiisna waxa uu geeriyooday sanadkii 1903. Adolf Hitler wuxuu isaga tegay dugsiga si uu u raadsado riyadiisa farshaxanimo. Hitler wuxuu u guuray magaalada Vienna si uu uga mid noqdo akadeemiyadda farshaxanka, laakiin 2 jeer ayaa loo diiday codsigiisa sabab la xiriira hibo la'aan. Sanadkii 1907 waxaa dhimatay Hitler hooyadiisa oo loo yaqiinay Clara, taasoo aad u jeclaa. Sanadihii xigayna wuxuu noqday qof bilaa guri ah, isagoo ku noolaada meelo dadka danyarta ah ay degan yihiin. Sanadkii 1908 ilaa 1913 wuxuu ka ganacsan jiray kaararka boostada, wuxuuna ka minguuriyey magaalada Vienna fikiryada cunsuriyadda iyo nacaybka Yuhuudda. Sanadkii 1913 Hitler wuxuu u guuray magaalada Munich ee dalka Jarmalka si uu uga baxsado ciidanka Austria. Markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1914 wuxuu si mutadawacnimo ah ugu biiray ciidanka Jarmalka, wuxuuna ahaa fariinside geesi ah oo wuxuu fariimaha isugu gudbi jiray ciidanka. Waxaana la siiyey bilado dhowr ah oo uu ku jiro bilada Iron Cross. Dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1918 wuxuu ku jiray isbitaalka, isagoo indhabeelku meel gaar ah ka qaaday sunta gaaska. Intii uu ku jiray isbitaalka ayuu maqlay guuldaradii Jarmalka, isna waxay sababtay inuu ka caroodo arrintaas, laakiin waxaa ka sii dareed markii uu maqlay heshiiskii Versailles'ka. Markii uu dagaalkii dhammaaday, Hitler wuxuu shaqaale ahaan ugu laabtay Munich, isagoo basaas u ahaa ciidanka si uu u kormeero xisbiyada siyaasadeed. 1919 wuxuu ku biiray xisbiyada shaqaale ee Jarmalka, kaasoo markii dambe loo bedelay xisbiga Naasiga. Hitler wuxuu noqday aftahan weyn oo soo jiida dadweynaha, isagoo eeda dhibaateed ee dhaqaalaha dusha ka saaray Yahuudda iyo siyaasiyiintii saxiixa heshiiska Versailles'ka. Sanadkii 1921 wuxuu si rasmi ah u noqday hogaamiyaha xisbiga. 8 Noofembar sanadkii 1923 Hitler iyo taageerayaashiisa waxay isku dayeen inqilaab fashilmay, kaasoo ujeedadiisu ahaa inay qabsadaan Bavaria kadibna ay u gudbaan Berlin. Kadib inqilaabkii fashilmay, Hitler waa la xiray waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah, laakiin wuxuu xisbiga Landesberg ku qaaday 9 bilood oo keliya. Muddadaas wuxuu ku qoray buuggiisa caanka ahaa, kaasoo ku qeexay qorshihiisa mustaqbalka ee ku aadan cunsuriyadda, ballaarinta dhulka Jarmalka iyo ciribtirka Yuhuudda. Dhibaatadii dhaqaale ee adduunka oo loo yaqaanay Great Depression ee dhalatay sanadkii 1929 waxay curyaamisay dhaqaalihii Jarmalka. Malaayiin dad ahna shaqo la'aan ayaa ku dhacday. Tani waxay fursad dahabi ah u noqotay xisbiga Naasiga. Doorashooyinkii xigana xisbiga Naasiga waxay noqdeen xisbiga ugu weyn ee baarlamaanka. 3 Janaayo sanadkii 1933 madaxweynihii Jarmalka Paul von Hindenburg wuxuu Hitler u magacaabay ra'iisul wasaare, isagoo u haystay inuu xakameyn karo, laakiin taasi maysan. Dhowr bilood gudahooda Hitler wuxuu gubashadii baarlamaanka u isticmaalay marmarsiyo uu ku baabi'iyo xorriyadda shacabka iyo xisbiyada mucaaradka. Kadibna geeridii Hindenburg sanadkii 1934 Hitler wuxuu isku darsaday xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarnimada, wuxuuna isu magacaabay inuu yahay hogaamiye. Wuxuu bilaabay dhismaha xeryaha Naasiga ah ee dadka lagu ururiyo, isagoo dalka u rogay nidaam kalitaliis ah. Hitler wuxuu bilaabay inuu jebiyo heshiiskii Versailles'ka, isagoo dhisay ciidan aad u xooggan. Sanadka markuu 1938 wuxuu Jarmalka ku daray dalka Austria iyo qayb ka mid ah Czechoslovakia. 1 Sebtembar sanadkii 1939 ciidanka Jarmalka ayaa ku duulay dalka Poland, taasoo keentay in Ingiriiska iyo Faransiiska ay dagaal ku dhawaaqaan. Farsamadii dagaalkii Hilaaca waxay u sahashay inuu qabsado Yurubta Galbeed muddo gaaban gudahooda. Bishii Juun sanadkii 1941 Hitler wuxuu sameeyey qaladkiisii ugu weynaa abid, isagoo bilaabay inuu ku duulo midowga Soviet, kaasna waxaa loo yaqaanay Operation Barbarossa. Sidoo kalena xilligaas wuxuu amray xalka kama dambaysta ah, kaasoo horseeday xuquuqdii Holocaust-ka ee lagu dilay 6 milyan oo Yuhuuda iyo malaayiin qofood oo kale.
guuldaradii Jarmalka ka soo gaartay dagaalkii Stalingrad sanadkii 1943 iyo duulaankii xulafada Normandy ee sanadkii 1944 waxay calaamad u noqotay in awooddii Hitler ay sii dhacayso ciidankiisuna ay dib u goran yihiin. bishii Abriil sanadkii 1945 ciidankii Sofiyeetka waxay hareeyeen magaalada Berlin. Hitlerna wuxuu ku dhuuntay dhulka hoostiisa. 29 Abriilna wuxuu guursaday qoftii uu jeclaa oo loo yaqiina Eva. maalintii xigtana oo ahayd 30 Abriil 1945 isagoo diidan in la qabto oo la duleeyo, Hitler iyo Eva waxay isku dileen dhufayska hoose. meedkoodii waxaa loo soo bixiyey bannaanka waxaana lagu gubay baasiin si waafaqsan dardaarankiisii, taasoo soo afjartay xukunkii Naasiga ee 12 sano socday.